Wacan oo wanaagsan daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii Sirta Nolosha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya haddii Allaha awoodda la oggolaado, anigoo ah Maxamed Siciid Cali Maxamed Turki. waxaanad kala socotaan barta aan YouTube-ka ku leeyahay ee Maxamed Turki Channel. Barnaamijkeena waxa aynu ku soo qaadan doonaa furfurnaanta iyo weliba sida ay muhiimka ugu tahay in uu qofka bini'aadamka ahi uu ku sifaysnaado. Furfurnaantu waa shay aada u qaaliya, isla markaasina kor u qaada shakhsiyad wanaagga qofka bini'aadamka ah. Sidoo kale, qofka furfuran waa mid markaasi soo jiidan kara guud ahaan bulshada, isla markaasina samayn kara dhexgal bulsho, isaga oo markaasi fikiradiisa iyo weliba aaraahdiisa ka dhaadhicin kara dad aada u fara badan. Waxa uuna markaasi noqonayaa qof laga tixgeliyo bulshada dhexdeeda haddii markaasi uu yahay mid markaasi furfuran oo markaasi leh hadallo xikmad iyo murti ku salaysan. Dadka bini'aadamka ahi waxa ay isugu jiraan laba qaybood. Qof waa qof furfuran, isla markaasina dadka oo dhan ay isfahmi karaan. Qofna waa qof xidhxidhan oo markaasi aan bulshada aan fahmi karin, isaga oo markaasi aan marnaba dhexgal bulsho aan samayn karin. Haddaba qofka furfuran waxa uu si wanaagsan u soo jiidan karaa guud ahaan bulshada, isaga oo markaasi noqon kara qof markaasi la dhegeysto, isla markaasina bulshada dhexdeeda looga hayo ixtiraam kala duwan oo markaasi dadka bini'aadamka ah ee uu la nool yahay ay u hayaan, maadaama oo uu yahay mid markaasi bulshada dhexdeeda iyo weliba dadkaba kula dhaqma weji furfuran iyo weliba dhoola caddayn. Halka qofka xidhxidhani uu yahay qof markaasi bulshada aan markaasi soo dhexgeli karin, isla markaasina hadalkiisa aan ka caddayn karin meelaha ay dadku isugu yimaadaan, isaga oo markaasi aan maskaxdiisa aan marnaba aan ka keeni karin waxyaabaha ku duugan ee markaasi uu damacsan yahay, isaga oo markaasi ka qajilaya bulshada in uu markaasi uu noqdo mid markaasi la wadaaga hadal murti iyo macno ku fadhiya. Balse qofka xidhxidhani ma aha mid markaasi caddayn kara hadalladiisa, isla markaasina dadka oo dhan soo jiidan kara. Sidoo kale, qofka hadalkiisu uu mar walba uu ku salaysan yahay xikmadda, isla markaasina hadalkiisu uu yahay mid calool xaadhan oo markaasi xikmad iyo waayo aragnimo ay markaasi ay saldhig u tahay. Waa qof fikradihiisa iyo weliba waxa maskaxdiisa ku jira ka dhaadhicin kara dad markaasi ka fikir duwan, isla markaasina ka hadal duwan, oo markaasi aanay isku fikir iyo weliba isku markaasi wax aanay aaminsanayn. Waxa uuna awood u leeyahay in uu soo jiito, isla markaasina uu ka dhaadhiciyo waxa uu isagu aaminsan yahay iyo weliba markaasi waxa ujeedooyinka uu doonayo. Inta badan dadku waxa ay markaasi ay ku weydiinayaan, weliba khaas ahaan dadka markaasi iyagu isku arkay inay xidhxidhan yihiin, waxa ay ku weydiinayaan qaabkee baanu uga baxnaa xidhxidhnaanta oo markaasi aanu u noqonnaa kuwo soo dhexgeli kara bulshada, isla markaasina la wadaagi kara aaraahdooda iyo weliba ra'yigooda. Haddaba qofku waxa uu ku noqon karaa mid soo dhexgala bulshada, isla markaasina fikradiisa iyo weliba aaraahdiisa iyo waxyaabaha maskaxdiisa ku jira la wadaaga. Waxa u suurto gelin karta haddii markaasi qofkaasi uu yahay mid xidhxidhan, in uu marka ugu horeysa uu bedelo habdhaqankiisa iyo weliba dabeecadihiisa gaarka ah ee markaasi uu isku leeyahay dabeecadahaasi waa kuwo kaa hortaagan inaad soo jiidato bini'aadamka, isla markaasina aad ka dhaadhiciso waxyaabaha aad markaasi jeceshahay. Waxaa muhiima inuu qofku bedelo waxyaabaha markaasi dabeecadihiisa iyo weliba mustaqbalkiisa nololeedna ku yeelanaya saameyn toosa iyo mid togan. Sidoo kale, haddii aad jeceshahay inaad noqoto mid markaasi soo dhexgala bulshada, isla markaasina hadalkiisu murti iyo macno uu leeyahay, waa inaad markaasi dadka bini'aadamka aad ula dhaqantaa qaab marka ugu horeysa wanaagsan, isla markaasina aad qofka marka aad la hadlayso aad hadal miisaaman
oo macno iyo weliba murti ku salaysan aad kula hadasho. Sidoo kale waa inaad qofka aad u muujisaa dhoolla caddayn iyo weliba farxad, adiga oo marka ugu horreysa tixgelinaya qofkani aad la hadlayso oo dhegeysanaya hadalladiisa iyo weliba waxyaabaha markaasi uu kuu sheegayo. Haddii markaasi qofku uu kaa arko inaad tahay qof markaasi qofkani tixgelinaya waqtina siinaya, waxaa hubaala in bulshada oo dhan aad markaasi aad ka yeelan doonto qof markaasi ay dhegeystaan, oo aad noqon doonto mid ay dhegeystaan oo ay u dheg raariciyaan. Qofkana marka aad ixtiraam gaara aad siiso waa uu ku qadarinayaa, waxaanad noqonaysaa mid markaasi agtiisa maamuus kale, tixgelintiisuna ay tahay mid aad u sarreysa. waa tahay daawadayaal, intaasi ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkeena. Fadlan subscribe saar, like iyo share-na ku qabo, lana wadaag asxaabtaada, kuna xidhnow channelka Maxamed Turki Channel. Inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, nabadgelyo.